Halkani waa Gacar Media. Dhageystayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gacar Media TV. Barnaamijka wixii cusub ee Gacar Media TV waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixinta dagaalka lidka dayax-gacmeedka ee Ruushka uu tijaabiyey. Soo dhawaada. Ruushka oo tijaabiyey gantaal lidka dayax-gacmeedka ah. Dowladda Ruushka ayaa tijaabisay gantaal lidka dayax-gacmeedka ama satellite-ka maalinta Isniintii, taariikhdu 15 bisha November 2021 ahayd. Haddaba, afhayeenka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mr. Ned Price oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda Mareykanka cambaaranayso kuna tilmaamay ficilka dowladda Ruushku samaysay mid kheyr-mas'uulnimo ah. Afhayeenka xogeyaha arrimaha dibadda oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi 1,500 oo ah walxaha haradigii dayax-gacmeedkii la burburiyey, qaarna in ay hawada ku kala firdheen, qaarna dhulka ku soo aadan yihiin, taasna ay halis tahay. Sidoo kale, hay'adda NASA ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay burburinta dayax-gacmeedka ee gantaalka loo adeegsaday in uu halis ku yahay nolosha carbixinada ee ku sugan saldhigga caalamiga ah ee hawada sare ee ku leeyihiin wadamada Shiinaha iyo Mareykanka. Sidoo kale, NASA ayaa cambaaraysay falka Ruushku uu ka geystay saldhigga hawada sare. Gaashaanbuurta NATO ayaa sidoo kale cambaaraysay tijaabada lidka dayax-gacmeedka Ruushku ku soo riday mid ka mid ah dayax-gacmeedyadiisa, kuna tilmaamtay fal aan laga fiirsan cawaaqib xumadiisa. Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in wadamada Shiinaha iyo Mareykanka ay ka shaqeynayaan sidii ay kusoo samata bixin lahaayeen carbixinadooda ku sugan saldhigga caalamiga ee hawada sare. Dhanka kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in aysan waxba ka jirin in ay halis ku yihiin saldhigga caalamiga ee hawada sare. Sidoo kale, Ruushka ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka in ay horey u diideen in heshiis laga gaaro arrimaha amniga saldhigga caalamiga ee hawada sare. Dhageystayaasheena sharafta